waxaan sanad walba u adeegnaa ku dhowaad 1 milyan oo bukaan ah. waxaan sabab u noqonay badbaadinta nafaf badan iyo daryeelka kuwa kale. waxaannu ku suntannahay tayo, taxadir iyo taakulaynta bulshadeena. helista daryeel caafimaad waa xuquuqda aasaasiga oo qof kastoo muwaadin ah. isbitaalka takhasusiga ee Soomaali Suudanes waa isbitaalka ugu weyn ee gaar loo leeyahay kuna yaala degmada Hodan ee magaalada Muqdisho. waxaa isbitaalka 2014 aasaasay ganacsato Soomaaliyeed, iyadoo xilligaas bulshada ay baahi weyn u qabeen adeeg caafimaad oo lagu asteeyay hufnaan iyo tayo, waafaqsanna halbeegyada caalamiga ah ee loo jideeyay daryeelka bukaan socodka iyo bukaan jiifkaba. dadaal dheer kadib, isbitaalka Soomaali Suudanes waxaa maanta ka howlgala ku dhowaad 30 dhakhaatiir. sidoo kale wuxuu isbitaalka shaqo abuuray in ka badan 400 oo shaqaale oo isugu jira rag iyo dumarba. isbitaalka Soomaali Suudanes waxaa ka heli kartaa 150 sariirood bukaan jiif ah, ku dhowaad 20 sariirood oo xaaladaha degdega ah, 4 qol oo loogu talagalay qaliimada casriga ah, shaybaaro iyo aaladaha kala duwan oo lagu sawiro bukaanka sida CT scan iyo MRI, iyo helitaanka gargaar degdeg ah xilli kasta. waxaana u ballanqaadeynaa in aan siino bukaanka iyo qoyskiisa adeeg hufan oo lagu laray soo dhoweyn, gacmo furan iyo shaqaale heegan u ah daryeelka bukaanka. waxaa mar waliba waajib nagu ah inaan shaqadeena u gudano si daacad ah, alla ka cabsi leh, anshaxa diinta iyo kan caafimaadka waafaqsan. ku soo dhowow isbitaalka Soomaali Suudanes, waxaan u taagannahay caafimaadkiina.